بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan oo aan meel kasta adduunka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan aan ugu magac daray wacyigelinta ka hortagga cudurka faafay ee corona walaalayaal sidaad ogtiin cudurka coronavirus ama covid-19 loogu magac daray waa cudur dilaa adduunka oo dhan khalkhal galiyay wadamadii hormaray dhaqaalaha haystay caafimaadka haystay qalabka hospitaalada haystay ayaa khalkhal weyn u galay dad badan ay ku laadeen isla markaana dhammaan curyaamiyay qaalihii wadamada ka jiray isla markaana xiray xuduudihii dalkaas waa dareemi kartaan xajmiga uu leeyahay cudurkaasi dadkani waxay fahansan yihiin khatarta uu leeyahay cudurkaas laakiin nasiib darro dadkeena Soomaaliyeed ma fahansana khatarta cudurkaas leeyahay ilaa hadda dad badan ayaa kaftan u haysta ilaa hadda dad ayaanan u qaadan dhab iyo inuu yahay cudur khatar ah waxaa nasiib darro ah ama wax laga xumaada ah in dalkeeni laga helay sida la xaqiijiyay oo hay'adaha caafimaadka ay xaqiijiyeen in Soomaaliya laga helay dad qaba cudurkani walaalayaal waa cudur silsilad ah dad badan ayuu qofkaas qaadsiin karaa maadaama aanan haysanin waxyaalihii dadka lagu baari lahaa waxa dhici karta inay magaalada Muqdisho joogaan ama Soomaaliya oo dhan joogaan dad cudurkaasi qaba isla markaana sii faafinaya macnaheedu waa maxay muddo kadib dad badan ayuu ku dhacaya dad badan ayaa u la'anaya isbitaalkii awalba asagoo eber ahaa oo finish ahaa oo waxba haysanin ayaa dadkii soo baaba'ayaan saas darteed waxa loo baahan yahay qof kasta oo Soomaali ah waxa waajib ku ah inuu ka hortago cudurkaasi sidii loo joojin lahaa isla markaana uu ka qayb qaato wacyigelinta dadkiisa haddaba waxaan rabaa inaan la wadaago 5 arrimood oo muhiim ah oo ka hortagi karta inuu cudurkaas faafo anigu dhakhtar mihi laakiin 5 arrimood waxaan ka soo xuraamiyay hay'adaha caafimaadka ee adduunka waana 5 arrin oo la isku raacsan yahay haddaba waxaan ka codsanayaa inaad adiga ku dhaqantid oo naftaada ka bilowdid isla markaana dadka aad xasuusisid sidoo kale waxaan baaq u dirayaa dhammaan dadka kelmadda dadka ku dhaxleh wariyaasha dhakhaatiirta hay'adaha caafimaadka siyaasiyiinta miidiyaha inay ka qayb qaataan barnaamijka wacyigelinta dadka qodobka koowaad wuxuu yahay gacmaha in la dhaqo in badan waad maqasheen in gacmaha la dhaqo waxaan u mahad celinayaa mas'uuliyiin waaweyn oo soo duubay muuqaalo ayagoo dadka ku wacyigelinaya in gacmaha la dhaqo maxaa gacmaha loo dhaqayaa gacmaha walaalayaal bakteeriyada iyo viruska ay qaadaan oo faafiyaan marka qofka uu mataqaanaa gacantiisa ay soo gaarto virus ama bacteria meel uu taabto meeshaas ay u wareegaysaa ku dhagaysaa qofka kale oo yimaada ay taabanaysaa qofka hadduu salaamo ay taabanaysaa marka waxa loo baahan yahay inaad saabuun soo qaadid aad ku dhaqdid saabuunta marka ku dhaqdid oo si fiican u dhaqdid oo aad macnaha dhan dhaqdid oo waad aragteen qaabka loo dhaqo oo aad si fiican u dhaqdaan waxa loo baahan yahay inaad ka qalajisaan markaas ka qalajisaan waxa jirta bahal loogu talagalay oo lagu shubo oo ma taqaan ayadana bakteeriyada disho waad isku shubaysaa horaad ayaad ka soconaysaa waadna is ilaalinaysaa marka waa muhiim saabuun qalajis iyo bahashaas hadaa haysatid inaad ku dadaashid inaad saddexdaas samaysid waxyaalaha kale cudurka faafiyo waxaa ka mid ah hindhisada dadka qaarkood nasiib darro markay hindhiso qabato waxay ku hindhisayaan gacmahooda يعني gacantii ayuu ku hindhisay hadsho ma ku hindhisay wasmarmarsanaya ninkii waa ku subkanaya asagii waa marsanaya qofka ugu horeeyay ayuu salaamay waxyaalahan aragno waxa kamid dad adoo la taagan intuu hindhiso ayuu hadoo iska ka salaamay waxaad arkaysaa mid mataqaana markuu qufacayo qufaci wajiga kaaga qufacayo ama dadkii ku dhax qufacayo marka waxa loo baahan yahay marka qufacaysid in aad isticmaashid gacantaada ama hadaad macuusaysatid ama go haysatid inaad dadka aadan wajiga uga qufacin maxaa yeelay candhuufta iyo dhibcaha ka daadanaya ay bakteeriyada la socon kartaa qof ay sanka ka galaysaa indhaha ka galaysaa afka ka galaysaa qofkii sidaas ay ku qaadaya marka waxa loo baahan yahay inaan taas ayadana iska ilaalino oo xoog saarno si aan u yareyn lahayn bakteeriyadaas waxa kamid ah salaanta Soomaalidu waa dad marxabeen ma sha Allah gacantu ku gelinaya oo kugu dhagaya habba la siinaya waxyaalahaas oo dhan maanta lama joogo xilligeedii waan ognahay inay fadli leedahay inay fiican tahay inay qofka naxariistu sinayso laakiin maanta walaalayaal waa in la is ilaaliyaa cudurkan sida loo xakameeyana waa in ay joojisaan gacan qaadka qofka waa in kor ka salaantaa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wali u jirso in muddo in cabaar u jirso space maxay yeelay qofka hadaa u soo dhawaato xadhici karta candhuuftiisa inay ku soo gaarto nadaafada waxa loo baahan yahay in lagu dadaalo nadaafada guriga iyo meelaha goobaha shaqada hadaad wali shaqada tagtid inaad ku dadaashid oo aad iska tirtirtid computerka iska tirtirtid marka gacanta maartay albaabada lagu qabta iska tirtirtid waxyaalahaas oo dhan waxay hadda culimada xaqiijiyeen dhakhaatiirta xaqiijiyeen in bakteeriyada ay 3 maalmood ama waqti dheer ay kor fadhiisan karto isla markaa qof coronavirus qaba haduu albaab furo uu taabto oo adiga ka daba taabatid adigana asaas ku soo qaadi kartid haddaba nadaafada lagu dadaalo
qodobka shanaad oo muhiimka waxa weeye fadhi ku dirirka iyo dadka kulmaya waxa loo baahan dadka inay guryahooda joogaan intay joogi karaan qof walbana inuu naftiisa kaligiis u joogo ka faa'iideyso quraan akhriso ilaahay bari cibaado samee waxa weeye ma taqaanaa social media youtube-yada gal wixii hore ku dhaafay aadan hore u daawan dib u daawo waxa loo baahan dadka inay ka fogaatid dad waxa jira dubnada ciyaara turubka ciyaara maqaayadaha fadhiista fadhi ku dirira ku jira dadkaasi waxaan leenahay arintaasi khatar weey Soomaalidana maanta ma qaabili karno cudurkani wallahi dhaawac ayaan nahay anagoo awalba sii liidanay haduu maanta kaan ugu darsamo waxaad ogaanaysaan in dad badan ay socon doonaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa dhibkeenu naga hayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa cudurrada xunxun inuu naga hayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa caalamka dhan u weydiinaynaa in uu dhibaatadan ka qaado gaar ahaan ummadeena Soomaaliyeed aad iyo aad ayaad u mahadsantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh